بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركii labaad BT Cash Fund ayaan qaadanaynaa maanta. Casharkan wuxuu noqonayaa sidii aan u save garayn lahayn iyo inta qaab aan u save garayn lahayn, sidii new page aan la soo bixinayo, new Microsoft Excel aan u furan lahayn iyo saan u cancel lahayn. inaas ay noqonaysaa. marka hore save garaynayaa quick access toolbar kan waan ka save garayn karaa. quick save taas waa save bala mid tahay. waxaan kaloo ka save garayn karaa file ayaan imaanaynaa, dan hoos ayaan soconaynaa, dan save taas aan save iyo save as waxay kula duwan tahay. save marka ugu horeysa ee barnaamijka soo furto save taas u dhahaya. marka labaadna markaan qoraal ku daro waxay noqonaysaa inaan idhaahdo save as ay noqonaysaa. save as markaan dhaho wuxuu leeyahay si aan qoraalka pathkiisa ama locationka aan ku save garaynayna ayaan dooranaynaa. browse ayaan dhahaynaa. browse markaan dhaho wuxuu leeyahay meesha aad ku save garayn lahayd dooro, magacana ka bedel. magaca waxaan u bixinayaa BT Cash ayaan u bixinayaa. BT Cash. then waxaan ku save garaynayaa desktopka oo BT Cash Fund dhexdeeda ayaan ku save garaynayaa. then type-kan wuxuu noqonayaa Excel workbook taas ayuu noqonayaa. then okay ayaan dhahayaa. hadda barnaamijkaygu wuu save garaysan yahay. title-kii ugu horeeyay ee markii uu soo qoriyay new Microsoft, hadda waxaa ku qoran BT Cash Fund ayaa ku qoran ama BT Cash ayaa ku qoran. waxaan kaloo save garayn karaa Control S baan dhihi karaa. Control S. save as ayaa sidoo kale waxaa la mid ah FN meesha ay ku qoran tahay. then F12 ayaa la qabanaysaa. F12 save as ayaa la mid tahay sidoo kale. sidoo kale waxaan baranaynaa sida loo yareeyo barnaamijkan iyo si loo weyneeyo. taa haddaan minimize ta ku qorno hoos ayuu u dhigayaa. waa barnaamijkeeni hoos ayuu geenayaa. waa ka hoostaas ayuu geeyay. tanna waxay noqonaysaa restore oo inuu yareeyo oo dhexda kusoo ururiya. tanna waxay noqonaysaa xidhida iyadoo inoo dambeynaysaa inta qaab ee loo xidho ayaan fiirinaynaa. midda kale waxaan rabaa inaan ku baro inta qaab ee loo xidho Excelka. tan close waa laga xidhaa oo close haddaan imaado way xidhmaysaa oo close haddaan taabta hadda barnaamijkeena wuu xidhmay. barnaamijkii ayaan soo furayaa. sida kale aan xidhi karo waxa weeyaan halkan inoo jooga waxaan taabanayaa Alt space C ayaan taabanayaa. kaasna wuu xidhmayaa. barnaamijkii ayaan soo furaya haddana haddii aan imaado file hoos ayaan u soconayaa. then close haddaan dhaho close-aasna wuu xidhmayaa asagana barnaamijkii oo kaas asagana wuu xidhay. intaasoo qayb ayaa lagu xidhi karaa. midda kale lagu xidhi karo waxay tahay iyadana inaad taabato Alt ayaa taabanaysaa. Alt markaa taabato Alt iyo F4 ayaad kor qabanaysaa hadduu shaqeeyo. hadduu shaqeyn waayana waxaad la qabanaysaa Alt FN iyo F4 ayaad markaa taabanaysaa. kanna wuu xidhayaa. ma save garaynayaa u dhahayaa. then save ayaan dhahayaa. save markaan dhaho waxaan kusoo noqonayaa Alt iyo F4 ayaan kusoo noqonaynaa. then halkan inoo taagan baa Alt iyo F4 ayaan boogsiinayaa. kaasna wuu xidhayaa. intaasoo qaab ayaa loo xidhaa. barnaamijkeena haddii aan rabno inaan furo markaad furaysa waxaad samaynaysaa right click waad dhihi kartaa. then open ayaad dhahaysaa. then open as open with Excel waad dhihi kartaa. sidoo kale waxaad dhihi kartaa right click then open taa waad dhihi kartaa. sidoo kale waxaad ku furi kartaa inaad double click tiraahdo. double click markaad tiraahdo intaasna qayban waa lagu furaa. hadda haddii aan rabo inaan wax ku qoro halkan ayaan wax ku qoray magac. haddii aan cancel is dhaho ama xidh aan is dhaho save garay ayuu dhihi doonaa. tusaale ahaan Alt space C ayaan taabtay. then maadaama aan magac ku qoray ama data aan ku qoray inaan save garay ayuu iga baahan yahay. kan iyo isaga waxay ku kala duwan yihiin ka online-ka markaad datada saa u qortaba save iyo save as iyo waxa kama baahno iyo Alt iyo F4 iyo waxa kama baahno automatic ayuu save garaynayaa. laakiin kan offline-ka markaad data ku qorto cancel haddii aad tidhaahdo save garay ayuu ku dhahayaa. then don't save ayaan dhahayaa. sidaas ayaan ku save garaynaynaa. intaasoo qayb ayaa lagu xidhaa. maanta casharkeena halkaas ayaan ku hakinaynaa. intaan cashar dambe dibadda waa u kulmayna. waxaan kaga tagayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.